الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. ثم ما بعد، waxaynu ka bilaabaynaa tafsiirka waa suuratul baqara aayada 187. qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uxilla lakum waxa la idin xalaaleeyay dadyahow leylata siyaami habeenka bisha ramadaan arrafathu ilaa nisaa'ikum inaad dumarkiina u galmootaan hunna libaasun lakum dumarku dhar bay idin yihiin wa antum libaasun lahunna idinkuna dhar baa u tiiniyahu علم الله ربي وحو أجادو أجيهاي أنكم إذنكم كنتم من أهاتين تختانون أنفسكم نفيهنا إن خيامين إنسان ووحل إذين ديري حدا إنسان فتاب عليكم وإذن كتوا بدق بلي وعفا عنكم وإذن كلا في وحس ميسان فالآن إم كذا باشروهن دمركي أقلبوضا وابتغوا حكر هادسان ما كتب الله لكم لها وحيد كقري وكلوا عنا واشربوا عبا حتى يتبين لكم شارو إذن عضاضه الخيط الأبيض ميق عضي من الخيط الأسود ميق مدو شارو كم مغضي كالبحان ميق عضو من الفجر واقع كبيانسا ثم انت كدب مركي واقع دلاعي كدب أتم الصيام صومكي وضع واحد ما يسترتان صومكي إلى الليل إلى لقاقار يهبينك وقرح دعاه ولا تباشروهن حاسسك هوك المؤمنة أما وحكدينا وأنتم عاكفون إذنك أو كنجي أو فرديو دجن في المساجد مساجد ذا تلك حدود الله تاسوا حدك إلهي يا أحكام تدين دجاية فلا تقربوها هودواننا كذلك يبين الله سدا سوء هيدين كعطينا يا آياته آياتي سوحوا عطينا يا للناس ذاتك لعلهم يتقون وحلقة رجينا إن إلهي كعب صدان ولا تأكلوا أموالكم حوله إنها كوكلا عنين بينكم لحدين بالباطل قردر وتدلوا بها كل روشنا إلى الحكام مضحرة لتأكلوا سيا أو عنتان فريقا قيب من أموال الناس ذاتك حوله ذا بالإثم سيا قردر وعنتان سدها السميننا وأنتم تعلمون إذنكو قرنيا labada aayadood wada socda aayada hore waxay gabagabow tahay ahkaamtii bisha ramadaan iyo soomka iyo maxaa xalaal qofka maxaa ka xaraam aayada ku xigtaana waxay sheegaysaa bisha ramadaan si ay taabagal u noqoto aqbalkeedii iyo ijaabadeedu kugu hagaagaan waxyaabaha laga ilaalinayo waxa kamid ah xaaraanta cunideeda iyo xoolaha dadka hadal xaraan quuta tahay soomkaagii wuxuu noqday foosto gunla ayaa daabinaysa munaasabada ka dhaxaysa waa taa weey si kala hadii loo eego hadii xurmo khaasi jirto hunaaka xurmatun caama bisha ramadaan dhexdeeda waxyaabo la idinka xaaraantinimeeyay baa jiro oo khaas aha waxyaabo la idinka xaaraantinimeeyo caamihina way jiraan ku darsada taana labada munaasabo way noqon kartaa sidaynu horeba u soo tilmaanay waxa jiray islaamka bilowgiisii markii la waajibiyay soomka qofku 24 saacadood hal mar buu wax cuni karay marka afurka hadduu dhaafo oo uu seexdo ama wax ka sii noqdaan waxa dhacaysa inuu maalinta dambe ugu bixiyo oo fursad kale haysan marka nin asxaabta kamida baa waqtigii seexday maalintii oo dhan buu shaqaynayay xaaskii baa ka soo gaarsiin weyda afurkii wuu seexday kadibna sidii buu ku soomay dhibaato soo gaadhay ilaahay adoomihiisa mar walba ka warhaya fudaydintan uu soo dajiyay marka inta la soomayaa waxa weeye inta ay qoraxdu soo jeedo qoraxdu inta ay soo jeedo ayuun baa la soomayaa marka waagu dilaacu ka soo bilaabmaya waagu dambe waliba way ee la yiraahdo fajru saad waxaanu ku eegyahay soomka marka ay qoraxdu dam tiraahdo casaanku inuu tagayo guduudku maaha laakiin waa inay qoraxdu dam tiraahdo uhilla lakum laylata siyam arrafathu ila nisaikum marka aayaddu waxay tilmaamaysaa soomkii inuu leeyahay waxyaabo buriya markii hore waxaynu soo wadnay binaagi cibaadadii oo la dhisayo
binaa walibana ama dhismo waliba wuxuu leeyahay uu u baahan in laga ilaaliyo hadminta wixii duminaya diinteennuna waa alhadbu walbinaa diin la-aantana way dumisaa wixii wanaagsana saxanna way dhistaa diintu marka waxyaabaha duminaya waxaa ka mid ah ama buriye soomka marka aayaddan iyo la eega axaadiidta kaleba axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa 7 shay inta la isku waafaqsan yahay 7daas wey halkan ilaahay uu ku sheegay qaar ka mid oo waa cunista iyo cabidda oo waliba ogaana al-aklu wash-shurbu camdan qofku waxinuu ogaanu cuno ogaanna u cabo soomkii uu kaga jabaya waxaa kaloo rasuulku ku daray sala allahu calayhi wasalam iska hunqaacinta iyadana waa kaga jabaya waxaa saddexaadoo halkan aynu ku haynaayo ku jabayaa galmada dumarkii loo galbooda maadaamuu ilaahay maalintii mamnuucay habeenkiina xalaaleeyey hadduu qofku maalintii galmo sameeyo soomkiisii wuu dhintay kafaara gudna waa looga baahan yahay qalle biyihii tarankoo qofku iska keenaa taana raacaya ogaan isaga keena maha hadday ka yimaadaan maalintii waxyaabaha burinaya ka mida dhiiggii dhalmada iyo dhiiggii caadada xadiidka saxiixa waxay ku sugan dumarkii saxaabiyaadku waxay leeyihin kunaa nu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i salaa gabadhu markay dhiigagaa leedahay salaada lama odhan jirin soo qaleeya laakiin waxaa nala fari jiray soomka inaanu soo qalayno xadiidka saxiixa waxaa toddobaadoo burinaya nacuudu billaahi minha alridda qofku inuu islaamkaba ka baxo diintu iska caayay rasuulka malaa'igta ilaahay ayuu caayay isagoo sooman dee alla yidhi la in ashragta la yaxbadanna camalu haddaad gaalnimo ku dhacdo camalkaagii wuu buray soomkii salaadii xajkii weysadii xaaskii wixii oo dhan way bureen ila waa balaayo weyne waa micwal ama dubbe ka weyni ma jiro oo lagu dhufto diinta toddobadaa shayba la isku waafaqsan inay burinayso ay burinayaan soomka mubdilaadka markaynu ka soo gudubno waxa ilaahay uu fasaxay arrafathu ilaa nisaa'ikum ayaa habeenkii laydin xalaaleeyay habeen oo dhan waa xalaal ilaahay baana uu xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya sidaa uu aayadka ku caddeeyey rafadku markiisa hore wuxuu ahaa hadallada laga yaro xishoodo ama xodxodashada dumarka iyo wixii lamid ah marka ninkii xaaskiisa markay dhex marayso arrintaas galmada iyo wixii la xidhiidhaaba waa xalaal habeenkii xukunka wuxuu kaasii dhaadhacaayo kusii macanaadaa marka ciladiisa lagu sheego marar badan nusuustu waxa qur-aanku wuxuuna baraa iyo sunnada nebiguba xukun baa la sheegaya ciladiisi iyo sababtii baa la sheegaya mararka qaarkoodna cilada waa laga yaabaa si dadban in loo fahmi karo hunna libaasun wa antum libaasun lahunna hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dee laydin kala ilaalin kari maayo waa nin iyo hugi iyo gabadh iyo hugeed xagee kala dhammaanaya marka ma kala maaray misaan bil dhan dhar la-aan ku jiri kari mayside habeenkii ka warhay wey habeenkii jaaniska ka faa'iidayso waay bil dhan kullu mamnuucin marquub baa leeyahay shaygana haddii qofka loo diido markaasu ayuu siraataa markaa lagaa joojiyey ramadaantii waa laga yaabaa in dee arrimo kaleba bilaabmaanba jacaylkiiba siyaado noqdo hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun sidaasay tahayoo rag iyo dumar dee ma kala maarmayaan waayo dharkan waxaa lagu qariyaa dhegxumada ka timaada qaawanaanta cawrada guur la-aantuna waxa ay leedahay xaas la-aantuna iyaduna sidaasoo kale cawray leedahay cawro iyo ishiyo meel eegegta iyo ceebo lagu dhaco waxaasay leedahay waxaasuu ilaahay ku asturaa subxaana wa tacaala waxay sheegaysaa labada qof dadka kale way kala xishoonayaan laakiin iyagu maya dee nin iyo dharkii ma kala dhowrsanaa waa baahi weyn baa jirta markaa ilaahay subxaana wa tacaala xikmadda meesha ku jirta ayuu inoo xusay taasi waa baab kale zawaajka iyo arrimihiisa iyo asraarta ku jirta weeye ciladin weeye tani calima allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum waa asxaabta qaarkood baa ku dhacay asxaabtii waaweynaa weliba ka mida ayaa qaarkood xaaskii galmo u sameeyeen habeennimadii haddii ay soo cawdeenna ilaahay baaba sheegay inuu og yahay qofku inuu naftiisa khiyaameeya waa inuu wax loo diiday ku dhacay
dadka sidaad u khiyaamaysa naftaadana waad u khiyaamayn karta waxaad ogaataa haddaad xaaraan ku dhacdo naftaadaad khiyaamaynaysa khiyaamo khatar badan weeye inaad adigu hoos u socoto naftaadii aad khiyaamaysa markaad macsiyo iyo dembi ku dhacdo amood inaad ilaahay wax heshid subxaana wa tacaala calima allaahu ilaahay horeba wuu ogaa laakiin tani waxa weeye wax muuqday bay noqotayoo sooba baxayba fataaba calaykum wacafaa cankum waa waxa weeyaan ilaahay baa ugu bushaareeyey addoommaha inuu cafiyey oo uu ka toobad aqbalay faalaana baashiruuhun mubaasharadu taa taabashaday ahayd laakiin imika waa galmadii marka qur-aanku wuxuu ina barayaa marka wax la sheegaya afgobaadsiga in la ogaado oo aan afka lagu ballaarinin marka wax la sheegayo adigoo dadkii wax fahamsiinaya haddana guud marka adiga arkaya qur-aanku aadaabtu ina barayo arrafathu iyo baashiruuhunna falamaa takashaaha waxaasoo dham waa erayo af wanaagsanaanahoo waxyigu ina barayo wabtaguu maa kataba allaahu lakum falaana waxay sheegaysaa imika soo wixii hore kadib hadda ayaa xalaal habeenkii yihiin dumar amarkaasina waajib maaha oo halkan waa la amro dee gawdan ka saaraya maaha waxa weeye waa amri libaax fasax bay kuuti hadda fasax baa ayaa lagaaga dhig wuxuu wabtaguu maa kataba allaahu lakum wuxuu ilaahay idinka qoray raadiya oo maxay ah dee waxa loo guursadoo dhan dee maxaa loo guursadaa wuxuu qofkii u guursanayaa inuu diin iyo dunyaba helo diin iyo dunyo iyo dadba inuu helo qofkii diin buu ka helayaa oo ajri buu helayaa ajri wa fii budci axadikum sadaqa rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayh wasalam miskiin hadduu xaaskiisa u garmoonayo dee sadaqu helaya kii asxaabta ka qancinaya tusaalaha usoo qaadanaya wixii ilaahay idiin qorayoo dee awlaadiya asbaabta iyo arrimaha loo guursadaa buu ka mid yahay dee inuu qofkii awlaad u baahan yahay ku abtirsado dee u shafaaco qaado haluma jar wabtaguu maa kataba allaahu lakum iyo inuu dee qofkii ku asturnaado hamadiisii uu guto wixii ilaahay idiin qadaray ka raadsada wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr cunidda iyo cabiduna waxa weeyaan fasax habeenkii amarkaasi isagu waa waajibo habeenkii cunno la-aan maya inaad tidhaahdo wisaal baan samaynaya wisaal ayadda wisaalka wey si dadban bay u diidaysa wisaalku waxa weeyaan soomkoo la isku xidhiidhiyo maantaad soomaysaa caawaad soomaysaa berri baad soomaysaa habeen dambaad soomaysaa cunnaba 5 cisho ma cunaysid asxaabta wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam alwisaalu xaraam naftii baa la dhibaya marka waxaan leeyahay aan ku saarin ha isku dhibin marka habeenkii inaad cuntood wax cabto dee wisaalka oo aanad soomkii xidhiidhinin waajib wey cunidda iyo cabidda waxaa horeynaya cunidda cabidduna way ku xigaysa wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin waxay odhan jireen berigii hore qofku markuu wax cuno 20 daqiiqo kadib ha cabo laakiin dakaatiro islaam ahoo cilmiga caafimaadkana aada u yaqaanaa waxay idhaahdeen qofku markuu wax cunayo inuu wax cabaabaa saxa oo dee qallaadada marka imika sibirhka lagu shubo intoo lagu rido sibirhka haddii biyaha laga daayo ka war way fadhiisanayaan sibirhkaas wuu fadhiisanaya marka inuu wixii lukid noqdo wax dareero ah oo carabka iyo candhuufta iyo waxaad cabaysaba lagu jilciyaa hadmiga iyo caloosha u fiican bay doctor suuriya oo khabiira markuu ka warramaya arrintan icjaaska cilmigaa saas u sheegaya waana waawul jamaaca waawda waxaa la yidhaahdo mutlaq uljamci bay keenta alwaaw tufiid mutlaq aljamci labada shay ee isku cadfan ee waawga la isugu cadfaa hal mar bay wada dhacaa cuna oo caba marka 20 hore oo maqli jirtay iska liq bay ku leeyihiin wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi waa miiqa cad iyo miiqa madow min alfajri baa safarka malagu mar gaaro intaa min alfajri ku keenay markii hore waxaa soo degtay aayadoo aan min alfajri lahayn ilaa miiqa cad iyo miiqa madow idin kala baxaan waaga inta cadaanka iyo inta madowga habeenkii jeeray kala soocmaan oo meeshu maalin ay ku cadaato in asxaabigu waa kii xariga hoos barkimada hoosteeda iska gashaday eegay un balintu
bahalkaasi aad u iftiimayo waa kii nabigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam barkimadaadu way ballaarantay isagoo la kaftamay ama waad qadaad weynta hore waxba uma fahmaysa markii dabeetana arrintaasi timid malagu mar gaar uu la soo safray inta min alfajr marka asxaabigii waxyiga qorayay rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam laxaq ku samee shayga barigii hore cilmi kitaaba loo yaqaan laxaq oo ahaa halkay ku haboontayn la dhaxgaliyo marka labada dhexdooda galib al-aswad thumma atimmu labada dhexdooda galib marka waa ku bayaansantay miiqa cada la sheegaya waa maalinka wakadalik min al-layl baasna jira laakiin baabul iktifaa baa la miiqa madow iyo miiqa cad mar hadii miiqi cad lagu sheegay miiqi madoobaana uu jira macnaa liid cad iyo liid madow liidka cad baa lagu sheegay liidka madoobina uu jira marka labada liid jeeray kala baxayaan way waxa aad u cadaynaysa fajriga la qaadanaya ka kor isu taagan maaha ee waa ka dadban baa miiqa leh ama liidka cad leh hatta yatabayana ayaa halkan ilaahay u isticmaalay xagga damana ila layli buu isticmaalay xagga hore marka soomka la bilaabayo hatta baa ku jirta marka soomka la dhameynayna ilaa baa ku jirta marka cilmiga carabiga waxay kala faa'iideeyaan hatta waxay yiraahdaan qaayad iyo muqiga isdhex kala shayga la soo waday iyo kala gu socday way isdhex galayaan ilaadana afkaysa saaraya hadaad imika tiraahdo sirtu hatta almadina waan sii socday حتى المدينة إلى أن مقالدي ها دحك قليبا لقى فهمية لكن سرت إلى المدينة أدين لقى أدين لقى هذا إلى المدينة تبان سعودي كونها نسكتها قوي مركز كان يسكو لهي النسية وحوي مركز حرائها بين كي أتشوك تحق عنيسته اسكوض إلى ما شوعت هذا ويكلا عطاته وشكي وقابح حقا دنبل لكن ينسيات شانس كعناده uga faa'iideysato waxbaha sugin inta casaan ama say oran jireen xaad u qarsoomayso odayaasheenii hore miyiga waxay oran jireen ilaa inta xaad u qarsoomayso soonka waa la wadaya taa looma baahnay waa ila layli habeenka uun marka saa u gasho ee qorraxdu dhacdo ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد دمرك هاو قلمونين وهلا عيارين يدينكم مساجدada degan waa cibaado la yiraahdo i'tikaaf وصومك هذا فضل بدن النبي قلنا طبعا كدنب بشهر رمضان وسمين جري وعبادة ساعات مركا إلى هاي وكل شهرين أحكام بدن بقول اعتكاف مركا أصل كيس إلى هلك برسلنا النقضاء مرنا واجب مركو قف كسكوا واجبية واجب واعتكاف كي مندور كهاي أنت كلنا واصلنا هذا وعرض متتابعية متقطع لبعض أبو النقضاء اعتكاف سكو حريرسن هو النبي وسمين جري يمد قوقان قلب الظروف تقف كسيدة هاي نبي قلنا ده سندي هرت طبعا بو كدغ جيره markii dama 20 buu ka dhigay sallallahu alayhi wasallam ihtikafku mar Ramadan buu ku kooban yahay misamaya labadaba waa la yiri laakiin Ramadan buu fadli badan yahay bilaha kale waa la ihtikaf karaa ma wuxuu ku gooni yahay saddexda masjid fadliga badan xaramka ka Madiina iyo Aqsa bisa masaajidada oo dhan maya waxay aayadu ku caday masaajidada oo dhan al masajid lafdu al masajid al masajid أشكو شرته وعهد ذهني بين العلماء ده معناه ده وحوي مسجد كلا أقنصي مسجد نمو الجماعة يجمع هذا لقول كذا أما جمع بعض واحد شرده ده مولع صوما حافظه إسكاليه هنا أما مهرد ليد ميلها إسكالله المسجد كلام هذا مولع بالله إذا ماشي يرى إذا قف إسكيجت كنيه مركب مال كستاء جمع لقول كنيه اعتكاف كذا لقول فلينيه عبادة أنا ولود ده لا آداب هذا أنا والله إلالينه تلك حدود الله فلا تقربوها هناك حرام محرمات وواجبات وحا هذه يتشير محرمات كامرك القرآن كتلماما يوحنا تلك حدود الله فلا تقربوها واحد إلهي ودقي أولا إليها قلينا انت تقشي اسكدا ايو هؤدواني مركب فلا تقربوها وحرانتا واستعمالا تلك حدود الله فلا تعتدوها ينوى واجباتك labada munaasabada kala leeyay wixii waajibaada waynu ku dhex jirnaa iyadana xad baa inagu xeeran lagu yiraahdo jeexino ha ka gudbi marka waa laba xad mid dushu inaga xiran yahay waajibaadka in ku jirno quraanku wuxuu isticmaalaa fala ta'taduha midina waxa weeye mid la inaga mamnuucayo de sida wadamadu adiga arkayo xaday kala leeyay marka booliskooda iyo ciidamadoodu inaad u soo dhawaato ma ogola waa xad ka xiran oo fiisa u baahan في سنة ده إلهي بحيه سبحانه وتعالى
xaraanta dee goortu xalaaleeyun bay xalaal noqon kartaa xaalata daruura marka xadkaa isagee kaa xidhan oo muxaramaadkiya markaana waxa muxaramaad laga hadlayna falaa taqrabuhaa wey labada xad had iyo jeer zoon baa jira u dhexeeya Soomaal marka ha u dhawaan yaad cagaha ka guban waa ka nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam leh malik waliba boqor waliba seer uu leeyahay seeraha ilaahay waa maxaarimtiisa marka fursadda munaasabada ay kala leeyihiin falaa taqrabuhaa iyo falaa tactaduuhaa latiifada ku jirtaa taas bay leeyihiin culimadu kadalika yubayinu allahu aayaati linnaasi lacallahum yattaquun sidaas uu ilaahay aayadihiisa dadka ugu cadcadaynaya waxaa laga sugaya inay ilaahay ka cabsadaan qofka cabsanayaana waa qofka xaaraanta xaddeedii aan gelin waajibka xadkiisa in aan ka bixin wallahu subxaanahu wa tacaala